gabadha waxaa lagu magacaabaa Fartuun waxay sheegtay inay wiil u hayso Raaga Cabdi oo ah ninka qaaliladan qabo. waxay sheegtay inay uurkaasi qaaday waliba uurkaasi uu yahay sharci daro. cunugaas ay Raaga Cabdi u haysana uu yahay mid wacala ay kaga baahan tahay Raaga Cabdi inuu magaca uu sameeyo maadaama uu cunuga isaga dhalay. sidoo kale waxay sheegtay inuu Raaga Cabdi horay una wax meher ah una u mehersan ama meher hoosaad ama meher sare labaduba waxayna sheegtay inay ku kulmeen hotelkaasi ay markaasi ay isku qabteen ayadoona sheegtay kadib markii uu hotelka magaaladaasi uu markaasi isaga shaqo u yimaaday markii uu ka soo tagay kadib ay uurka isku aragtay ama ay markaasi markay xanuunsatay kadib dhiiga iska baartay dhiigaasi oo lagu sheegay inay markaasi ayada ay uur leedahay. waxayna sheegtay inay markii Raaga Cabdi wacday oo u sheegtay inay uur u leedahay misna uu markaasi mehersado si ay markaa uurka uu xalaal u noqdo uu markaasi meel walba uu baloog ka saaray. waxay tiri wiilkayga hadda waa 2 jir waxa uu sii socdaa 3 jir waana wiil markaas waxay tiri sii weynaanayo marka waxa uu weydiinaya mar walba ay tiri aabihiis maadaama uu wiilka uu yahay wiil u baahan aabihiis. waxay tiri waxaan idinka codsanayaa inuu Raaga Cabdi markaasi uu gabadhay aan dhahay wiilkayga uu siiyo magac si markaasi wiilkayga uunan qayrkiis uu hadhow loogu caynin waclayaa tahay. live kaysanad hodan online ayaa lahayd hodan online ayaana waxay ugu baaqday qaaliladan in markaasi ay ninka ay markaasi isqabaan ay runta u sheegto maadaama uu gabar hore uur wacla oo ugu yeelay. gabadhan ayaa waxay sheegtay inay markaasi qaaliladan ay kaga codsanayso ninkeeda inuu kaliya aabanimada ay markaasi uu xalaaleeyo ayna wax kale kaga baahnayn lacag iyo sidoo kale xatee aroos iyadoona laakiin sheegtay inay dunida u jeceshay laakiin waxay tiri jacaylkayga waan qarsan karaa haduu kaliya wiilkayga aabo oo ii siiyo iyadoo wiilka markaasi soo bandhigtay misna sheegtay inuu aad ugu egyahay Raaga Cabdi. qaaliladan oo arintaasi aad uga xumaatay ayaa soo dhaga hadashay video dhaga hadal soo duubtay ayadoo ugu dambeynna live ay soo gashay live-taasi ay ka dhex sheegtay in gabadhani ay been sheegayso markaasi ay Raaga Cabdi ay inay ku caanbaxdo ay rabto inaan wiilkaasi Raaga Cabdi wax lagu unan ku lahayn ayadoo qaaliladan si qof isuba ay u hadlaysay waxay tiri waxaan diyaar u ahay inay gabadhani markaasi ay dhiig cunugeeda ay ka qaado. Raaga Cabdina waxay tiri aniga ayaa balan kaga qaaday inuu dhiigiisa qaado hadii markaa isku dhiig ay noqdaan waxa balan kaga qaadaya ay tiri wax alaalo waxay doonto ama ay sheegataan u sameyn doono balse waxay tiri bishardi hadii ayada ay been sheegayso ku soo cadaato waxay tiri in markaasi ay idana sharciga iyo sidoo kale wixii lagu xukumo ay qaadan doonto. taasina waxa qofka saa u hadlayay waa qaaliladan qofka ishuban waa qaaliladan waxana la sheegay gabadhan inay dhowr mar ay markaasi ay markaa ninka Raaga Cabdi leeyahay ay jeclayd inay mar walba ay ku soo dhigto ay markaasi caan ku noqoto. gabadhan ayaana markaasi waxa ay sheegtay mar ay video soo duubtay in hadalka qaaliladan ay ka soo jawaabayso iyadoo iska dhigayso waxa ay sheegtay inay markaasi ay tiri wiilkayga ayaa Raaga Cabdi weeg iyadoo qaaliladan ay tiri wiilkaaga Raaga Cabdi uma eko filter ayaa ka soo buuxisay waxyaabo noocaasa waxayna soo bandhigtay gabadha ay Raaga Cabdi qaaliladan ay u dhashay sawirkeeda iyadoo sheegaysa inay gabadheeda uu qaaliladan aan Raaga Cabdi aad ay isugu eegyihiin balse aynan aad isugu ekeen wiilkay gabadhani soo bandhigtay. gabadhan sidaan u quruxda badan ayaa gabdho badan waxay sheegay inay isbahdilayso maadaama ay sheegayso inay uur wacala ay qaado cunugaas uuna xalaal ahayn. waxayna sheegtay inaan qalad waxay tiri waxaan galay qalad waan is ogay waana sinaystay oo wuxuuna raali Ilaahay ka heenayaan sameeyay cunugaasina waxay tiri waa ogahay inuu ku dhashay bilaa sharci dhanka diinta iyo dhanka dhaqankaba aanan waafaqsanayn balse waxay tiri waxaan rabaa qaladkayga in aanan la sii weyneen oo la saxo waxana ii sixi karaa tiri ninkan Raaga Cabdi leeyahay maadaama uu isaga wiilkayga dhalay. waxay tiri shalay waa la macaanay maantana waa la xumaaday taasina waxa uu yahay bay tiri nin rag Soomaali ah waxayna sheegtay in markaasi ay wiilkiisa ay dib u soo fiiriyo. dhinaca Raaga Cabdi ayaa waxa la sheegay inuunan wax hadal uunan wax jawaab ka soo bixin isagoo markaasi aan maxaan ku yiraahdaa arintan soo afaara galin balse hada sheekadu waxay maraysaa gabadhan idin hor muuqata ee Fartuun lagu magacaabay sidoo kale fanaanada weyn ee qaaliladan oo sheegtay 4 saac inay gabadhani doonayso inay ninkeeda
ama raaga cabdi ay markaasi ceebayso waxayna sheegtay in sheekadani ay lagu fahmay maadaama gabadha ay ka rabtay caanimo waxay tiri abaya caanimo uu kuma noqonaysid ninkayga waxayna tiri caruurtan meel aad ka keentay lama yaqaano meelaha aad ka keento orodoo aad gabadhan ayaa la sheegay inay mar walba niman kula kulmi jirtay hoteelada ay gobolka ay ku sugan tahay waxaana la sheegay gabadhan inay ku sugan tahay dhinaca iyo maxaa gobolada ama meel ka mid ah Soomaaliya iyadoo la sheegay boosaaso dad ay leeyihiin dadna garoob ay leeyihiin anyways gabadhan waxa la sheegay inay mar walba ay markaasi niman kula kulanto ayadoona ay run tahay in raaga cabdi gabadhan mar ay si walaalnimo ah ku kulmeen balse waxay tiri sheekada meeshay u rogtay mayna ahayn waxayna tiri ugu dambeyn ay ku xujeysay gabadhan qaaliladan ayadoo si raganimo u hadlayso waxay tiri abay hadaad isubtid kitaabka ilaahay ayaan ku kala baxaynaa soo qaado anigana waa raaga cabdi ayaan u soo qaadayaa si labadiina aan markaasi maxaan ku raadayay u kala baxdaan balse gabadhan ay arintaas ka gaabsatay taasina waxay cadeynaysaa in gabadhan ay been sheegayso maadaama ay diidan tahay inay ku dhaarato inuu cunugaasi raaga cabdi ka dhalay ama uu lahaa iyadoo ay balan qaaday qaaliladan in raaga cabdi ay dhaarin doonto ku dhaaran doono inuu cunugaasi dhalin ama inuu dhalo labada mid isaga laga doonayo balse waxay tiri gabadha marka hore waxay tiri ha ku dhaarato markaasi waxay tiri haday ku dhaarato way isubta hadayna ku dhaarana ismubta balse gabadhan ayaa gabi ahaanba waxay ka gaabsatay dhiiga inay wiilka ka qaado cunuga yarka xataa waxay tiri dhiiga lacagta lagu qaadayo qaaliladan aniga ayaa dhiibayo laakiin gabadhan ayaa labada dhinac ka gaabsatay tusaale dhiiga in laga qaado la rabo sidoo kale kitaabka lagu dhaaranayo maadaama labadaasi arin ay ka gaabsatana waxay cadeynaysaa qaaliladan inay saxan tahay oo gabadhan ay qaldan tahay inkastoo wixii warbixin ay ku soo korortay markaasi aan isla arki doono